Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu isku soo noqosho wanaagsan waxaan ka hadlaynaa casharadii taxnaa inoo ahaa ocular anatomy and physiology maanta waxaan kusoo qaadan doonaa iskaleeraha maadaama koornay kasoo hadalno iskaleeraha waa xuubkan cadaanka isha ku wareegsanaa ee loo yaqaana iskaleeraha maanta cashirkeena iskaleeraha ku saabsan yahay iskaleeraha haddaan ka bilaabno wuxuu ka imaaday ereygan iskaleeraha Greek word ay ka imaada sclera means waa hard word scleraha waa elastic resistance sheet waa xuub oo resistance oo adag oo sheet oo jilicsan waa oon adag waa markii waxayna ku jirtaa groupka outer layer ay ku jirtaa waxayna gaartaa 6.5 ay ka gaartaa markii 6 meelood 5 ka mid ah waa scleraha waa outer layer ayna ku jirtaa anterior waxay ka tahay limbus posterior waxay ka tahay optic nerve shaqo ahaan waxay qabataa protection of the eye ayay sameysaa maintain of the eye ishan way protection way sameysaa waxayna ka qayb qaadataa shape of the eye embryological ahaan iskaleeraha like cornea markay bilaabanayso waa stroma iyo epithelium halka iskaleeradan ay kasoo bilaabanayso mesothelium meesha line so marka human iskaleeraha white waa qofka markuu iskaleeraha white waa because waxay u tahay waxay qabanaysaa wavelengthska lightka ay qabanaysaa waana irregular clogene panels waa qofka childrenska waa bluish waa blue waa because waxaa waaye waxay inta badan waxaa la arkayaa choroidka ayaa la arkayaa dadka waaweynka oo old age-ka waa yellow waa iskaleeraha because waxaa waaye adipose fatis badan ayaa ku jiro iskaleeraha markii male and female markii la dhaho male-ka ayaa culeys ah markii loo fiiriyo female-ka iskaleeraha culeys ahaan thick male-ka female-ka markii la dhaho male-ka ayaa adag human iskaleeraha optic nerves approximalka qaybta optic nervaha thick ahaan wuxuu garaa 1 millimeter halka meesha oo hore ee limbiska insert of extraocular muscles meesha ka galaan ay garaan 0.3 millimeter so marka tendon thick ahaan wuxuu gaaraa extraocular muscleska thick ahaan wuxuu gaaraa 0.6 millimeter general thick oo guud ahaan cornea iyo limbiska markii loo fiirino 0.83 millimeter waa sclera waa kan qaybtan optica waa 1 millimeter qaybtan kore extraocular muscleska injectionka iska galaan waa 0.83 millimeter halka meesha limbiska iska galayaan waa 6 millimeter sclerada waxay leedahay 3 layer ayay leedahay sclera sclera proper iyo lamina fosca ayay leedahay scleraha xuubka ugu horeeya layerka ugu horeeya leedahay sclerada scleraha waa thin waa elastic waa vascularized layer waa connective tissue waa wuxuuna yaalaa scleraha tendon of the capsule anterior waxaa ka jiro qayb ka mid ah waxaa soo maro part ka mid ah waxaa maro faceless iyo nerve fibers kuwaasoo ku jira collagen and cells ayaa ku jira so sida waxaa waaye like fibroblast and melanocyteska scleraha laba qayb ay leedahay anterior iyo posterior ay leedahay iyada naftarkeeda qaybteeda anterior scleraha waa subconjunctival tissue waxaana ku dahaara anterior capsule 1 to 2 millimeter behind waxay u jirtaa limbiska waana thin waa posteriorna waa superior anterior ciliary artery iyo posterior ciliary artery waa layerka koowaad kasoo baxnay kan labaad waa sclera proper sclera proper ama sclera stroma ama subtania proper saddexdaba waa lahaa waxaa ku jira waxay ka kooban tahay collagen panel elastic fiber fibroblast iyo ground substance ground substance waa prostaglandin iyo glycoproteins waa collagen panelskana waa scleraha like waxaa waaye cornea camal waa transparent waa collagenka fibreskas waxay gaarayaan 50 ilaa 400 millimeter ayay gaaraya fiber range ayuu gaaraya sclera fibroblastiskana waa very important role oo waxay ka qayb qaadataa in la sameeyo collagen in la sameeyo ay ka qayb qaadataa fibroblastigan layerka ugu dambeeya waxaa loo yaqaanaa lamina fosca kan waa pigmentiga cells waaye oo like melanocyteska iyo like choroid migrate wuxuu ku yahay oo ku xiran yahay choroidka haddaan u imaano qeybahan ugu dambeeya marona
sclera waxay leedahay apertus ama godad ayay leedahay, 3 holes ayay leedahay. waxaa posterior sclera, middle sclera iyo anterior sclera. qaybtan posterior scleraha posterior waxaa qaybta dambe waa god waaye oo optic nervaha waa. posterior ahaan wuxuu garaa 3 mm, medial ahaan wuxuu garaa 1 mm. both of the axis meesha iska galaya waxaa loo yaqaanaa, meesha ku dhamaanaya waa diuromata iyo arrangement. to the optic become wuxuu noqonaa membrane ayuu noqonaa, xuub ayuu noqonayaa. also sidoo kale qaybtani wuxuu kala baraa central retina iyo artery iyo veinkaas ayuu kala baraa. middle sclera apertuska approximate wuxuu garaa 4 mm behind or posterior. excess wuxuu ku dhamaadaa fornix loo yaqaano fornix venous ayuu ku dhamaadaa. sidoo kale wuxuu quudiyaa drainage, wuxuu siiya choroidka, ciliary body-ga iyo iriska oo uveal tract. qaybtan ugu dambeyso godadka waa anterior cilia and anterior sclera apertuska. located wuxuu yeelaan the near of the insertion, wuxuu gaaraa meel u dhow rectus muscleska oo extraocular muscleska ayuu galaa, wuxuuna ogolaadaa in ciliary muscle-ka uu soo galo. waxaa jira lamina fosca, lamina fosca waxay ku jirtaa iyadana sclera ku jirtaa behind of the thing like waa optic nerve, like optic nerve waa fibroblast. region of the sclera waxaa loo yaqaanaa lamina fosca. blood supply qaybtan ugu dambeeya soo gaarnay. blood supply sclera waxay ka heshaa anterior ciliary artery ayay ka heshaa, oo kaasoo u kala baxayo long iyo short ciliary artery. scleraha waxaa ku jiro numerous of channel canals oo kuwaasoo maraya artery iyo venous ayaa maraan. nerveskaas marayan waxaa loo yaqaanaa emersed canal ayaa loo yaqaanaa. nerve hadda waxaan kasoo baxnay blood supply. nerveska supply siiya scleraha waa nerve ciliary nerviga oo anterior labaa loo kala qaybinaya, anterior posterior. anterior waxaa siiya long, posterior waxaa siiya short ciliary, long posterior ciliary artery. sclerana meeshan kaga baxna waa idinkaga mahad celinaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.